koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war reer kalamaano langi gabara koo weydiisada walsiye hooban dhalona hambalya u guuriya leere usuna u guuri biintii likafade kadamba may waajibkaa inoo masaasad haggada aana booran haggada sokornaha baaldhika hoob iriti ganjeelya hafadheedo salaamu calaykum usoolan arnab wa calaykum salaam halibodo shiidna meelaha dhikada gabarti inoo likafuru istaahiljeyu war hadalkaada ma fahmine 2019 musharax madaxweynaan ahay war naga tag 2019 doorashada ku soo aadi mayse hadda afaarahaas gashay sarabta inaad dawladda ugu shaqayso war nimayahow ninkii dhawaan laga qaaday xubinnimada guddiga isgaarsiinta ee Cali Shaamay waxa uu yiraahday wasiirka boosada isgaarsiinta maxkamad baan la korayaa sababtoo ah sharci uma marin inuu xubinnimada iga qaado ayuu yiri war wasiir nabad iyo nolol ah maxkamad inuu hortag lama sugaye ninkaas mudanihiisa iska raacdo war nimayo ana yaabsana ayaantu may baahabaday hilil iska gaadis oo sharci ban waafaqsanayna diidid naha dabaroogdiyana gudoomiye gobolka Hiiraan Yuusuf Hagar Dabageed hilkii ka gaadi diidi gudoomiye gobolka mudug oo haafilka ka gaadayna diidiyari kan aan damboy guddiga isgaarsiinta hay Cali Shaamay usun hilkii loo gaadi diidiyari taasiyad ma in sabab leh lambaylood ama gaari gacan laka hilka ka gaad lileeyo war Yuusuf Dabageed war kama hayside aniga warka hayay dhigayso baladweynuhu ku hadlo wuxuu yiri madaxda Hirshabeelle weerar bay igu soo yihiin waan iska difaacaya dawladda dhaxana degdeg waa inay soo fargelisaa arrimaha Hiiraan haddii ay ku taliso xilka waa ka dagaya haddii kala dhawaan si joogaya buu yiri waxa kale oo yiri awal ba heshiis dawladda dhexe Hirshabeelle ay galeen ayaana liigu magacaabay war hadda Yuusuf Dabageed dhinaca nabadii nolol ka dhinaca Hirshabeelle ka miya war Hirshabeelle oo dhan baa nabadii nolol naga tag war hadda hadaan sheegaysid waara shirka Nairobi aadaya ka soo reeb war shimbirki wadaajeena ay buubi inoo buubo meeli ka jarta lafta garanay inoo meeliseeda ka jarta war madaxweyne xaaf shimbir ma uusan sheegin ee waxa uu yiraahday gurigayga Muqdisho hal sano ma aanan tagin cadaadana diyaarad baan ku dul maraa waa inaan dagaal galnaa buu yiri waxaasna uma dul qaadan karno dhimashaan ka xignaa waa inaan dagaal galnaa buu yiri war madaxda dawladda dhaxaba sabiib iyo caanoole diyaarad bay u raacday xaafays ka dulqaad war Axmed Madoobe bu'aala ma tage xaafays ka dulqaad waryaada way iska xiiqsantihiin dalka xaaladda taalaxanta iyo beenta ka daaya waxaana la yiri xil nin loo igmaday oo haddaad aamin noqon weydo ahdigiiyo haddaad ballamadii oofi kari weydo ha inkirin ama haddaad qabtay eebba ka cabso gabaygan Donald Trump miyuu ku socdaa war ajuuso abilitiriya awooda ku bilaawa leeray Donald Trump mayna deersi war xarfaanay hergaba ku dhacaan lahay ma maqshan war Donald Trump anaga ka murqabne ilaa wuxuu ku tirsiyaa ciyaalka xaafadda ee Mareykanka abowga anaga siino afaaris naga dhaafano ali ku qaadano xariifoono war xisbiyada Soomaaliland hadday doorashooyinkii ku heshiin waayeen hargeysana lagu qaban waayeen cadaada ha keensadee 20 daqiiqo lagu kala tuuraya war Soomaaliland war kama ogidine haweeney ka hadasha arrimaha Iiraan iyo Mareykanka Iiraanna taageertay 10 maalmood ku dhawaad xabsi ay ku jirtaa war Soomaaliland ma ictiraafka meesha la galay warnimada oo dhibaatooyinkii siyaasadeed dawladda Kenya Soomaaliya ku sameeynayay waa soo kordheen haddana waxay mamnuucday baabuurtii Mandheera iyo Nairobi isaga gooshaysay arrintuna waxay aad u saameysay gobolka Soomaalida ee Kenya war mooshiidii gobol Soomaaliyeed oo Kenya la tama jiro dhul Soomaaliyeed oo qayloodii barak weertan koonfurka filo leeray hadii isku saarna meel Kenya baridadan ku kooyi doonta war wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya ee Francisco Madera waxa uu la kulmay madaxweyne Farmaajo iyo gudoomiye Mursal kulli arrimaha laga hadlayna doorashooyinka soo socda ayaa kamid ah gudoomiye muuday shirkaas kama qayb galin miya warna mandala la kulmay isan latin baadi kordha u leeyahay hooyo godan ala ka fiiriyay hoos dhaw hoo leeyahay hooyo reebeen ala ku kontroolay may kala kulunkaas war maxaabiisi xabsiga dhac ku xireed waxa loo wareejiyay xabsi cusub oo ku yaala kiiloomitir 7 ama taliska ciidanka asluubta war asxaab
waryaabay wax ma ogadiine Boortaqiiska ayaa xalay ku guuleystay koobkii International Championship war ra'iisul khayr wuxuu yiri qofkii cabasho qaba gmail-ka su'aalaha igu soo dira waraan su'aalaan diray ra'iisul wasaare may bahaaytay farmashiga hortiis bi wasaq ee wax hor fadhiyay ra'iisul wasaaraha ka jawaab ay jawaabnimo ka haye war waad khaldan tahay su'aashaas waxa iska leh dawladda hoose xamar war aniga 10 jeer u diray ra'iisul wasaare dhagaxyada naga hor qaad waan ku baryaynaa kuwa kalena nagu sii siyaadi war waa qaldantaa ra'iisul wasaaruhu dhagaxdan jidka sooma dhigine hay'adaha amniga ayaa shaqo ku leh warmay waxa la yiri Suudaan sokeeyaan iyo toliya saaxiib sawaxanka ka soo yeeray iyo baaska lagu sayray Said iyo Salman iyo dhibka Siisi baa wada inay guushu seegtay rabaan shacabka Suudaan qultaleena shuruu ya zool waxa saaday madaxda sheegaysa wadaan dhibka anaga haysta yaa wada Abi Ahmed iyo Hura wada Abi Ahmed iyo Hura ما لك بحق غير لكل war naga tag calooshu weynaati